Assalaamu calaykum dhammaantiin daawadayaal kusoo dhawaada cashir kale oo aynu kaga hadli doono xeerka la yidhaahdo Rush for Links ama haddii aynu Soomaaliyeena noqonaya gaadhiga midigta ayaa kale gaadhiga bidixda. Cashirkan waxaynu kusoo qaadan doonaa xoogaa tusaalayaal ah iyo siyaabaha aad ku garan karto inaad ku jirto ereyada ama goobta Rush for Links-ka lagaga dhaqmo ama ay ka shaqeyso. Cashirkan wuxuu si gaar ah muhiim ugu yahay dadka imtixaanka maraya, gaar ahaan imtixaanka proofing-ka ama praxis-ka ee maalinta u dambeysa aad ku qaadanayso furashaankaaga. Meelaha lagu dhaco imtixaankana waa meelaha ugu badan ee dadku imtixaanka ku dhacaan. U soo dhawaada dhammaantiin. Sawirkan idiin muuqda waa sawir muujinaya tusaale ku saabsan Rush for Links-ka ama baabuurka midigta ayaa kale baabuurta bidixda. Inta aanan gudbin sharaxaada, waqti yar qaado kana fikir baabuurkan labadan baabuur iyo mootadu sida ay wadada u kala marayaan. Keeba number 1 maraya, keeba 2 maraya, keeba 3 maraya, sida ay u kala marayaan. Haddii aynu ku horeyno sida sawirka ka muuqda, mootada ayaa number 1 maraysa, waxaa ku xigay gaadhiga cas ee number 2 ga ah, number 3 ugu dambeyn waxaa maraya gaadhiga huruudda ah ama number 3. sababtuna waxa weeye mootada wax midig ka xiga ma jiro, yacni wadada midig wax baabuur oo ka soo socda ma jiro. Gaadhigan labaadna midigtiisu waxay noqonaysaa mootada, sidaas darteed ayay mootada uga hormartay. Gaadhigan saddexaad ee huruudda ah waxaa midigtiisa ku aadan gaadhiga cas ee number 2 ga ah, sidaas darteed gaadhigan casi uu ka hormaraya isaguna. Mootadu sababta ay uga hormartayna waxa weeye maadaama uu gaadhigan huruudda ah uu bayrayo, waxaa ka xaq mudan ama ka hormaraya mootada oo toos u soconaysa. Sida sawirka inooga muuqata, ma jiro wax calaamad ah oo meesha ka muuqata ama ambal ama traffic light kala hagaya baabuurta amaba askarigii kala hagi lahaa. Intaa midna inooma muuqdo. Sidaas darteed dariiqan ama isgoyskani waa Rush for Links. Dariiqan waa dariiq Rush for Links ah, waxaanad ku garanaysaa wax calaamad ah oo ku tilmaamaysa say baabuurtu u kala mari lahayn kama muuqato. Waxaana wadada ka hor gudbaya gaadhiga ka imanaya xagga midigta, Land Cruiser-kaas brown-ka ah. Dariiqan waa mid kale oo muujinaya in uu yahay Rush for Links, waayo wax calaamad ah inooma muuqato. Waana meel xaafado dhexdood ah oo inta badan lagu socdo daraasish ama 30 km/h. Isgoyskan ama dariiqan waa Rush for Links, sababtuna waxa weeye wax calaamad ah kuma muuqato. Sawirkan waa sawir ka mid ah imtixaanka ama su'aalaha theory-ga ah, waana Rush for Links. Gaadhiga madow ayaa hormaraya, waxaa ku xigaya adiga gaadhigan wada, waxaana u dambeynaysa mootada. Waa sawir kale oo muujinaya Rush for Links, sababtoo ah wax calaamad ah inooma muuqato. Saas darteed baaskiilada ayaa hormaraysa, marka waa inaan u fasaxnaa inay wadada gudubto. Waa sawir kale oo muujinaya isgoys afarta dhinacba wada ka jirto oo aan wax calaamad lahayn, waana Rush for Links. Waxaa u horeynaya gaadhiga guruunka ah, waxaa ku xigaya adigan baydhaya, waxaana ugu dambeynaya gaadhigan cas. Waxaa jira iyaguna meelo lagu qaldi karo Rush for Links oo uu qofku ku qaldami karo una malayn karo inay tahay Rush for Links. Tusaale ahaan, gaadhi ka soo baxaya gurigiisii oo wadada soo gelaya maaha Rush for Links. Waxaa kaloo lagu qaldami karaa gaadhi ka soo baxaya Verkeersberuegte Bereich ama
meesha ka caagan speedka ee aan loogu talagelin in speed badan lagu socdo. gaariga halkaa kasoo baxayana ha u maleynin inuu kaa leeyahay, adiga ayaa kale. sababtuna waxa weeye dariiqu ma kala go-na ee waxaa weli sii muuqda inuu dariiqii dhinac yar u hooseeyo laakiin laynkii dariiqu uu sii socdo. waxaa kaloo aad ku qaldami kartaa baabuurta ama gaadiidka kasoo baxaya Fußgängerzone-ka ama ereyada dadka lugeynaya loogu talagalay. baabuurka halkaa kasoo gelayana adiga ayaa kale, sababtoo ah laba midab bayba ku kala leeyihiin oo aad ku kala garan karto wadada caadigeed ku socoto iyo wadada uu kasoo baxayo. waxaa iyadna lagu qaldami karaa baabuur kasoo baxaya ereyada baarkinka ama meel baarkinka baabuurta ah, kaasi oo soo gelaya wadada. kaasina maaha Rush for Links, adiga ayaa kale. waa inuu ku sugaa ilaa intuu fursad ka helayo. intaas waxay noogu dhan cashirkeenii koobnaa ee aynu kaga hadlaynay Rush for Links-ka. intiina imtixaanka u diyaarka ah waxaan rajaynayaa nasiib wacan. inta kale ee weli barashada wadana dadaalka sii wada. haddii aad wax ka faa'iiday clipkan ama videogan, please subscribe lana wadaag asxaabtaada si ay uga faa'iidaystaan.